بسم الله الرحمن الرحيم مدعي واليبا حسن محمد كترسن معدك deegaankii cimilada jaamacadda Simad maanta waxaan ka hadli rabnaa arrinta la xiriirto laga digayo oo La Nina xaaladahan la kiraado La Nina iyo El Nina waxa saameyn ku leh dabaysha loo yaqaan trade wind dabayshan trade wind waxay ka kacdaa badda Pacific Ocean-ka markay kacdo waxay dhalisaa ugu yaraan saddex xaaladood xaaladda koowaad waxay tahay waa xaalad iska caadi ah normal ah oo dabaysha markay soo kacdo badda Pacific Ocean-ka east-ga ka soo kacdo bariga waxay imaanaysaa dhanka waqooyi xaaladdan marka waxa laga yaabaa inay isku dheelitirmaan kuleylkii iyo qabowgii dabayshaas ay kicinaysay marka wax zaa'ida ama dabeyl ma ka dhalanayaan saameyn oo abaar iyo roob ma ka dhalanayaan xaaladda labaad waxaa loo yaqaanaa El Nino xaaladdan waxa waaye markay kululaato bartamaha iyo bariga badda Pacific Ocean-ka tan waxay keenaysaa marka inay daciifto dabayshii oo aadaysay waqooyiga marka waxa ka dhasha marka biyihii kululaa inay dib u soo laabtaan tan waxay keenaysaa marka inay ay carqaladeyso qaab dhismeedkii cimileed ee badda maxaa ka dhalan kara marka arrimahan kale waxaa ka dhalan karo roob culus inay da'aan oo xaddigii roobkii la yaqaan maana ka badan inay dhashaan taasoo ka dhalanaysa marka fatahaadyo oo Soomaaliya markii la joogo kale waxaa inta badan fataho wabiyada Shabeelle iyo Juba sidoo kale markii fatahaadahan dhacaan oo kale waxaa burbura kaabayaashii dhaqaalaha ay ka mid yihiin buundooyinka iyo wadooyinka oo khatar gelinayso noloshii bini'aadamka sidoo kale saameyn ku yeelanayso dhaqaalaha sidoo kale markay fatahaadu ay dhacaan oo kale waxaa dhasho cudurro la xiriiro waterborne diseaseska ay ka mid yihiin cholera iyo maxaan ku radaa cudurrada kale oo la xiriiro biyaha waxaa kaloo jirto xaalad saddexaad kale oo la yiraahdo La Nina xaaladdan waxa qaboobayo bartamaha iyo bariga badda Pacific Ocean-ka tan waxay ka dhalanaysaa waa markii dabaylaha trade windska ay daciifaan oo markay daciifaan waxa dhacayo biyihii kululaa ay maray oogada sare ee badda inay sii fogaadaan taana waxay ka dhalanayso qaybtii east-ga badda inay qabowdo markay qabowdo marka maxaa ka dhalan kara tusaale ahaan adduunka iyo Soomaaliya tusaale ahaan maxaa ka dhalan kara roobkii in la waayo gabi ahaanba ama xaddigii roobkii la heli jiray in ka yar la helo saameynta ka dhalanaysa waxay noqon doontaa abaaro oo arrintan la xiriirto La Nina ay dhalinayso oo inta badan Soomaaliya waxaa la dareemaa xilliyada deerto kaleeta sidoo kale waxaa dhacayso biyo yaraan oo ka dhalanayso abaartaas qaleelka ah sidoo kale waxaa ka dhalanayo in khatar loo galo inay dhacdo majaaco iyo faamin Soomaaliya kalta markaan fiirino taariikh ahaan arrimahan la xiriiro La Nina oo dhalinayso maxaan ku raahdaa abaarta way soo laabatay waxaan tusaale u soo qaadan karnaa tii ugu dambeysay ah 2011 ee dhalisay macluul aad u daran oo keentay abaar taasoo ka dhalatay xaaladdan loo yaqaano La Nina markaan u nimaano saameynta ka dhalan karto xaaladdan La Nina oo inta badan la xiriirto roobkii la waayo ama xaddigii roobka uu ka yaraado saameyn waxay ku yeelan doontaa in real impact ay ku yeelato community-ga tusaale ahaan waxaa ka mid ah inay ka dhalato humanitarian crisis oo waxaa hadda la tilmaamayaa in ka badan 3.6 milyan oo qof inay hore u saameysay gaajada jirto sidoo kale arrintan kale hadda La Nina oo laga digayana ay gaarsiin karto 4.4 milyan oo qof inay gaajo iyo maxaan ku radaa macluul ay noqdaan oo numberka intaas kordhi karo ilaa iyo sanadkan soo socdo 2025 bartamihiisa sidoo kale waxa saameynta kale ka dhalan karta waxay tahay macluul saa ognahay carruurta Soomaaliyeed oo hadda da'du ka yar tahay 5 sano in ka badan 1 milyan oo dhalinyaradaas ah inay khatar ku gali karaan macluul oo ka dhalanayso waxa feel garoobayo wax soo saarkii beerihii iyo dalagii saameynuhu sidoo kale saameynta waxay saameyn doontaa dhanka biyaha marka la fiirsho waxa qalali doono barihii laga heli jiray biyaha sidoo kale waxa yaraanayo goobihii biyaha laga heli jiray saameyn ku yeelan doonto water supply-gii sidoo kale meesha waxa laga yaabaa inay ka dilaacaan cudurro la xiriiro biyo yaraanta sida koleraha iyo cudurrada kale inay dilaacaan
sidoo kale waxaa khatar ay ku leedahay ama saameyn doonta dunyada la dhaqdo xoolaha oo ku tiirsanay waxa dalaga soo go'ayo iyo maxaan ku raahdaa biyaha ee saameyso sidoo kale saameynta kale ka dhalan doonta waxay noqon doontaa social impact oo inay dhacaan conflicts oo local ah iyo sidoo kale in dhacaan displacement dadka inay barkacaan maadaama abaartii wixii ay dhaceen sidoo kale waxay yeelan doontaa dhan dhaqaalaha saameyn ku yeelan doonto waxay saameyn doontaa dadka beeraleyda ah iyo sidoo kale dadka leh small businesska talaabooyinka muhiimka ee la qaadi karo waxa ugu muhiimsan waxay tahay in la helo wax loo yaqaan early warning system oo in la helo wadar digitaan guud dadka loo digayo taasoo maxaan ku raahdaa saxan maxaan ku raahdaa waqtiyeysan oo dadka lagu wacyi gelinayo xaaladan La Niña inay maxaan ku raahdaa ku baraarugsanaadaan kadibna maxaan ku raahdaa difaac ay ka galaan oo biyihii keedsadaan meelihii biyaha ay kashan jireen ay habeystaan si ugu diyaar garoobaan arrintan soo socoto ee La Niña sidoo kale in lagu dhiirigeliyo dadka inay beertaan dalaga u adkeysan karo xaaladahan oo kale abaarta ah iyo sidoo kale inay dhaqdaan xoolaha u adkeysan karo abaarta sidoo kale waxaa muhiim ah talaabooyinka muhiimka la qaadi karo waxay tahay in la sameeyo water management system oo ah nidaam yani biyaha lagu keedsan karo maadaama xaaladan ay la xiriirto abaartan wax looga bixi karo waxay tahay in la helo keedad waaweyn oo biyo ah marka waxaa loo baahan yahay in la ballaariyo meelaha biyaha lagu keediyo sidoo kale dib loo hagaajiyo waxyaabihii naga burburay oo biyaha ku keedsan jirnay sidii barkadaha iyo waraha iyo daamiska talaabooyin kale oo muhiimka waxay tahay in la helo emergency humanitarian aid oo dadkii in la taakulay la caawiyo maxaan ku raahdaa si u heli lahaayeen daawooyinka u baahan yihiin cudurrada ka dilaaci karo sidoo kale ay heli karaan ilmaha caruurta ka yar 5 sano nafaqo ku filan ee arrintan maxaan ku raahdaa abaarta uga bixi karaan sidoo kale in la helo community education and awareness dadka in wax la baro lagu wacyi geliyo sidii arrintan uga hortagi lahaayeen oo La Niña inay ku baraarugsanaadaan sidii biyaha u keedsan lahaayeen aqoon u yeeshan lahaayeen xirfadda sidoo kale beeraleyda ayagana lagu baraarujiyo la siiyo xirfadii iyo aqoontii xaaladaha noocan oo kale oo abaarta soo laabanayso sida ugu adkeysan lahaayeen fariinta kale ugu muhiimsan waxay tahay call to action kala qaadi karo si arrimahan looga hortago waxay tahay in la helo wada shaqayn guud hadday noqoto dawladdii hadday noqoto local communitieski wada shaqeeyaan si arrintan maxaan ku raahdaa loogu hortagi lahaa la badbaadin lahaa maxaan ku raahdaa dadka iyo dunyada ee ay saameyn doonto abaartan oo la xiriirto biyo la'aanta muhiimadda ugu weyn waxay tahay in la diyaar garoobo muhiimadda ugu weyn waxa waaye in la diyaar garoobo diyaar garowga maanta wuxuu badbaadin karaa khatar biri dhici karto ku abaasantiin